السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان أصحابتا أنت جنالك كحيران سو دوادا رمضان أكاديمي أونلاين جنال كان وجنال إليهم أرداد الصوماليات من والبعيش ويان أنت كحيران عاوها إنه باللاون دونا مادة في سكاف دوسيق صارف فصل كفان فور حكا بلاوي دونا جبتر ككوبات أو periodic and oscillatory motion periodic and oscillatory motion ka bilaabi doonaa caawa cutubka koowaad insha allah waan dhammayn doonaa buugga haddii uu eeba yiraahdo waxaa inoo qoran oscillatory motion cashirka koowaad waxaan ku qaadan doonaa yani periodic and oscillatory motion socod kaleed iyo socod walhadeed intaan u guda galin casharka waxaan ka bixi doonaa introduction yar ee waa maxay motion iyo noocyada motionka sabuurada haddii aan wada tagno sabuurada waxaan qeexi doonaa waxa loo yaqaano motion socodku means macnihiisu waxa waaye change in position oo walaxda inay boos iska bedesho change in position waa isbedelka walaxda ku dhacaya change in position of object waa walaxda inay iska bedesho meesha ay taagneed waxaa loo yaqaanaa socod motionka guud ahaan wuxuu u qaybsamayaa saddex nooc ayuu u qaybsamayaa nooca koowaad ee translatory motion waa socodka walaxda ay ka dhaqaaqaysa meel ayna tagaysa meel kale waxaan kusoo qaadanay form 1 form 2 form 3 u qaataa translatory motion waa nooca koowaad nooca labaadna rotatory motion walaxda markay ku wareeganaysa axiskeeda waxaa loo yaqaanaa rotatory motion iyaduna sidoo kale waxaan kusoo qaadanay fasaladii hore rotatory motion iyo nooc u dambeeya nooca saddexaad aan ku qaadan doono form 4ka ee vibratory motion ayaa socodka walaxda ay u soconayso hore iyo gadaal waxaa loo yaqaanaa vibratory motion ama oscillatory motion loo yaqaanaa ama oscillatory motion noocyada socodkan waxaa dhahnay change in position of object walaxda meesha teed markay iska bedesha waxaa loo yaqaanaa socod sidoo kale form 1ka waxaa kusoo qaaday socodka in laba nooc loosoo kala qaybin jiray uniform motion iyo non uniform motion guud ahaan marka socodka saddexda nooc u qaybsamayaa translatory motion ee socodka walaxda yani meel ka dhaqaaqaysa ayna tegaysa meel kale iyo rotating motion walaxda markay ku wareeganayso axiskeeda iyo rotator motion or oscillator motion
onforka waxaa ku qaadan doonaa marka rotatory motion ama oscillatory motion aan ku qaadan doonaa. haddii aan guda galno cashirkeena caawa cutubka koowaad cashirkood ayaa caawa noo bilaaban doonaa lesson objectiveska. By the end dhamaadka of the lesson ee cashirka the learner bartuhu should be able to wuxuu awoodi doonaa qofka cashirka markuu qaato wuxuu awoodi doonaa divine inuu qeexo oscillatory motion socod waladeedka inuu qeexo explain inuu sharaxaad ka bixiyo periodic motion socod kaleedka differentiate between inuu sheego farqiga u dhexeeya periodic motion and oscillatory motion ayuu awoodi doonaa ardayga. sidoo kale divine wuxuu qeexi doonaa period kalka and frequency iyo rakaadka. waxaan ugu gudbaynaa qaybta koowaad ee ah oscillatory motion socod walhadeed. socod walhadeed maxaa loo yaqaana? waxaa leenahay oscillatory motion is defined as waxaa lagu qeexaa the to and fro motion of objects socodka ay sameynayso walaxda kaasoo ay u sameynayso hore iyo gadaal ay u sameynayso walaxda from its mean position iyadoo laga eegayo barteeda nagaashiyaha. halkan waxaa loo yaqaana meesha gacanta shad saarayo barta nagaashiyaha. halkan waa to and from walaxda qaabkaas markay u socoto ayna usoo noqonayso barteeda nagaashiyaha waxaa loo yaqaana oscillatory motion socod walhadeed. aan ku celiyo mar kale oscillatory motion socod walhadeed is defined as waxaa lagu qeexaa the to and from motion of object socodka walaxda ay sameynayso iyadoo u dhaqaaqayso hore iyo gadaal. aan ku celiyo is defined as waxaa lagu qeexaa the to and from motion of object socodka hore iyo gadaal ee u dhaqaaqayso walaxda from its mean position iyadoo laga eegayo barteeda nagaashiyaha. halkan waxaa loo yaqaanaa mean position. halkan markay walaxda to and from to socodkaas hore iyo gadaal ay sameynayso walaxda waxaa loo yaqaanaa socod waladeed. haddaba tusaalooyin ka mid ah examples of oscillatory motion. tusaalooyin ka mid ah oscillatory motionka lambar 1 waxaa noo qoran oscillatory motion oscillation waladka uu sameeyo of simple pendulum walashada fudud yani maxaa la lahaa dhaqaaqa ay sameyso oscillation yani gariirka ay sameyso walashada fudud. sidoo kale lambar 2 waxaa noo qoran spring movement moolada dhaqaaqa ay sameynayso. waxaan halkan ku qoran waa mooladii maaska halkaas loogu xiray walaxdaan hore iyo gadaal ay u socoto waa nooc ka mid ah oscillatory motion socod walhadeedka. qodobka saddexaad ee noo qoran waxaa waaye vibrating yani gariirka ay sameynayaan of string xirigaha in musical instrument qalabka musicalka lagu tumo ee gitaarka loo yaqaano gariirka uu sameynayaan waa nooc ka mid ah oscillatory motion socod walhadeedka. qodobka afaraad waxaa noo qoran alternating currents. currentga guud ahaan laba loo qaybiyaa AC iyo DC. waa alternating currentga qulqulkan qaabka markuu socdo halka leenkan taagan ee vertical yani waxaa loo yaqaana current leenkan jiifan waxaa loo yaqaana timeki. socodka qaabkaas markuu socdo uu halkaas usoo noqon to and from taas markuu yahay waxaa loo yaqaanaa oscillatory motion. waxaan u gudbi doonaa insha allah periodic motion. periodic motion maxaa dhahaynaa isna? periodic motion qeexitaankan buuggeena ma qoraayo examples ka mid ah qoran saa darteed waa soo qaadanay qeexitaanka maadaama tusaalooyinkiisa uu buugga keenayo. waxaa dhahaynaa marka definition of periodic motion socod kaleed. waxaan kasoo gudubnay socod walhadeed maxaa la lahaa iyo tusaalooyin ka mid ah. haddaba waxaan u gudbaynaa periodic motion socod kaleed. socod kaleedku waxaa leenahay is a motion waa socodka of an object ee walaxda sameynaysa that taasoo regularly si joogtaa returns kusoo noqonayso to a given position bar cayiman after a fixed time interval waqti cayiman gudahood. walaxda markay kusoo noqonayso bar cayiman waqti cayiman gudahood waxaa loo yaqaanaa periodic motion. periodic motionka waxaa ka mid ah wareega uu sameeyo yani rotation on the earth yani dhulka wareega uu sameeyo yani halka jeer uu wareega sameynayo dhulka waxay ku qaadataa 365 maalmood. marka rotation of the earth wuxuu ka mid yahay periodic motion socod kaleed uu ka mid yahay. haddii aan ku celiyo mar kale periodic motion socod kaleedku is a motion waa socodka of an object ee walaxda that taasoo regularly si joogtaa returns ugu soo noqonayso to a given position bar cayiman walaxda markay kusoo noqonayso after fixed time interval waqti cayiman gudahood
waxaa loo yaqaanaa periodic motion. haddaba periodic motionka tusaalooyin ka mid ah periodic motion ayaa inooga xigi doona. examples tusaalooyinka of periodic motion ee socod kaleedka. lambarka koowaad oo noo qoran waa motion socodka of hands of the clock. socodka ay sameynayso gacanka saacadda wuxuu ka mid yahay periodic motion, socod kaleed uu ka mid yahay. sidoo kale motion dhaqaaqa uu sameynayo of planets meerayaasha ay ku sameynayaan around the sun, ayna ku wareeganayaan dhulka. marka exampleska ka mid ah periodic motion number 1 waxaa ku sheegnay motion socodka of hands of the clock. saacadda gacankeeda dhaqaaqa ay sameynayso waa nooc ka mid ah periodic motion socod kaleedka. sidoo kale waxaan sheegnay tusaalaha labaadna waxaa dhahnay motion socodka of planets ee meerayaasha around, kuwaasoo ku wareeganaya the sun qoraxda, etc. wixii la mid ah tusaalo intaas iyo wixii la mid ah waxay ka mid yihiin examples of periodic motion. sidoo kale waxaa dhahnay rotation on the earth, yani wareega uu dhulka sameynayo halkii mar inuu dhulka wareegto waxay ku qaadataa 365 maalin ayay ku qaadataa. waxaa kaloo dhahaynaa oscillatory motion socod walhadeedku is a type, waa nooc ka mid ah of periodic motion socod kaleedka. oscillatory motionka waa nooc ka mid ah socod kaleedka. walaxda halkan markay kusoo noqnoqonayso waqti cayiman gudahood, waxaa dhahnay waqti cayiman gudahood ay soo noqnoqonayso waxaa loo yaqaanaa periodic motion. haddii aan soo dul marna cashirkeena caawa waxaa dhahnay oscillatory motion maxaa lahaa. oscillatory motion waxaa dhahnay waa the motion of object, waa socodka ay sameynayso walaxda, waa socodka ay is defined as, waxaa lagu qeexaa dhahnay is defined as, waxaa lagu qeexaa oscillatory motionka the to and from motion, socodka hore ee gadaal of object ay sameynayso walaxda, from iyadoo laga eegayo from its main position, iyadoo laga eegayo barteeda nagaashiyaha waxaa lagu qeexaa dhahnay oscillatory motion. sidoo kale waxaa sheeganay tusaalooyin ka mid ah oscillatory motionka waxaa ka mid ah dhahnay oscillation gariirka ay sameynayaan of simple pendulum, walashada fudud. halkaas gacankaas waxaa loo yaqaan dhahnay bob loo yaqaan dhahnay. qodobka labaad waxaa sheeganay spring movement, dhaqaaq ay sameynayso moolada, waa nooc ka mid ah oscillatory motion socod walhadeedka. sidoo kale qodobka saddexaadna waxaa sheegnay vibrating gariirka ay sameynaya of strings, xirgaha in musical instrument ee qalka muusigalka lagu garaaco ee loo yaqaan gitaarka. sidoo kale alternating current-ga wuxuu kamid yahay dhahnay oscillatory motion. sidoo kale waxaa qeexnay waxa loo yaqaano periodic motion. periodic motion waxaa loo yaqaan dhahnay socod kaleed. ereygaas kalka tusaale haddii aan soo qaadano waxaa dhahnay waa socodka ay sameynayso walaxda, taasoo kusoo noqnoqonayso meel cayiman ayna kusoo noqonayso waqti cayiman gudahood. waxaa soo sheegnay is motion waa socodka of an object ee walaxda daataasoo regular si joogta ama repeat si joogta, returns regular si joogta, returns ee kusoo noqnoqonayso a given position bar cayiman after fixed time interval, waqti cayiman gudahood ee kusoo noqonayso. sidoo kale waxaa sheegnay tusaalooyin ka mid ah periodic motion socod kaleedka. tusaalooyin ka mid ah waxaa sheegnay motion socodka of hands of the clock, gacanka saacadda dhaqaaqa uu sameynayo waxaa dhahnay wuxuu ka mid yahay periodic motion. sidoo kale waxaa dhahnay motion dhaqaaqa ama socodka of planets ee meerayaasha around ay ku wareeganayaan the sun qoraxda iyo wixii la mid ah. sidoo kale waxaa qeexnay oscillatory motion waxaa dhahnay is a type, waa nooc ka mid ah of periodic motion socod kaleedka. socod walhadeedka waxaa dhahnay waa qayb ka mid ah socod kaleedka uu ka mid yahay. activity ku qoran iskaas answer ka jawaab all of the following questions su'aalahan soo socda. waxaa ku qoran differentiate, sheeg farqiga u dhexeeya between oscillatory motion and periodic motion, labada waa kala qeexe. give more examples, tusaalooyin ka mid ah oscillatory motion and periodic motion. xisadeena koowaad caawa halkaas ayay nooga siman tahay. haddii cashirka koowaad daawatay la soco qaybaha kale
channelkan subscribe saaro si ay ku soo gaaraan casharada aan soo geliyo. Subscribe, like, share, comment. Asxaabta BRC ee sanadkan imtixaanka qaranka u fariisanayso